dowladdeena khayrka qabta way mahadsan tahay marka koowaad marka labaadna cariiriga ilaahay baa naga bixiyay dowladdanada naga bixisay ha noolaato guddiga xalinta dhibaatooyinka suuqa lacagaha Puntland oo maanta kormeeray habka ay uga socoto suuqyada Garowe qaadashada shilinka Soomaaliga guddiga ay dowladda Puntland u xilsaartay xalinta mushaakilaadka qiimo dhaca shilinka Soomaaliga ayaa maanta kormeeray habka ay uga socoto socodsiinta shilinka Soomaaliga suuqyada waaweyn ee magaalada Garowe caasimadda Puntland guddigii go'aanka ay soo jeediyeen aad iyo aad baan ku qaadanay khayr Allah siiyo lacagtiina waa socotaa saddex bir hadda waa soconaysay cid allaaliyo cidii Soomaali waxaan u ballan qaadaynaa inaan ka qaadayno cid iyadoo diidda iyadoo u taala wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan oo ku hadlay afka xukuumadda Puntland ayaa ganacsada ku dhiirigeliyay qaadashada shilin Soomaaliga hadalkii waxa dhameeyay madaxweynaha dhameeyay Cabdiraxmaan Sanitarka dhameeyay waxa qayb dawladdu ku ahayd waxa kamid ahayd in dekadii dib loo furo lacagtii lagu qaado waxa kamid ahayd in lacagta suuqa dheeraadka ku ah bar kamid ah ay soo dawladdu ka soo saarto suuqa ka xarayso barka kalena ganacsatadu ay ka xarayso ganacsatada waaweyn anigoo ku hadlaya magaca dawladda waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo dawladdu inay go'aan ka aqbashay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdilaahi Dariina uu dekreeto ku soo saaray lana fuliyay waxa ka hadlaya la fulinayo wax dambe ka soo noqonayaan aanay jirin ganacsatadii iyaguna waxay bilaabeen qaybtoodii lacagta xirayntoodii bay soo bilaabeen wax waliba si loogu talagalay bay u socotaan ku kalsoonaada aamina maanta ka bacdi waxa inoo ballana shilinkeenii oo inoo shaqeeyay inoo socda idin waa la inii sarifaya cidii sarifta aniga ay ugu timaado ha ka biqina baqaarada waa laga qaadayaa kuwa raashinka laga qaadayaa meel walba waa laga qaadayaa gudoomiyaha gobolka iyo degmada ayaa la soo xidhiidhaysaan iyaga anaga noo keenaya qof maanta ka bacdi baqaayu jirin hal la socotiyo hawshi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa uguna kalsoonnaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xoghayaha waanu isaragnay waana wada hadalnay waxaanuna ka wada hadalnay inay lacagtu socoto annana aanu socodsiinno waanu aqbalnay waxa weeye weli wax yar baa jiro haddii dadku mardido waxaad mooddaa Soomaalida waxbaa ku qafilma lacagtii baa maalin intii la qaaday hakad galay qofkii markaa tiraahdo war waxa kani maxay yihiin gadaal buu ku tusay wuxuu ku leeyahay bal waxa halka yaal xageegeeya annagu dadkaanu nahay xoolaha dadka keena iyo dadka gada sumcad xun baa la fukiyo waxa dad baa ka dhex ganacsada dadka xoolaha keena iyo dadka gadanaya annagu ilaa maalintii Cabdiraxmaan oo madaxweynaha lagu doortay iyo maanta anigu suuqan jooga ka dadka waana lagu xidheeyay baan joogo ka injida gudaheedaan joogo kanaan jooga mar kasta dadka waxaanu jecelahay dadka wax laga gadaya waa dadka ugu jilicsan waynu wada ognahay waa maato rag wax ma iibsado dumar baa wax iibsada agoon bay wadataa mid lagu furay bay wadataa mid iska xoolo yaraaday bay wadataa dhibrin baanu ku samaynaa annagoo barakshar saarayna ka xoolaha wataa because waxa weeye qofku marka uu mas'uul yahay mas'uuliyadda sidiisaba horta qofku inuu shaqo aadama hadduusan garan shaqadu ka shaqaynayo hadalka aad noo keenteen gobolka iyo degmada iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo xubnaha kale oo dawladda qaybaana dadka wejigooda isaqoon marka waxaan idinku hambalyaynayaa wejiga ehelnimada oo mas'uulnimada oo aad noogu talada waad ku soo dhaweynaynaa lacagtana dhankayaga barbarkay ka baxdaa waa bakay qaran waa socodsiinayna hadaalid bakhaarka aan wax ka gatay waxa la yiraahdaa Boosaaso alaabtana halkan taala waxaan ku qaatay cash marka alxamdulillah aad bay soo dhaweeyeen wiilasha ganacsada 9 milyan bay ahayd lacagtii marka cash ahaan baan marka alaabta ku qaatay xoolihii u niri dollar u niri waxa dhacday maalmihii ugu dambeeyay xoogaha khalkhalku ina galay baa waxa dhacday dadka wixii ay kala bixeen xoolo dhaqatada ah lacagtii kaashka ahayd oo baadiye raashin looga sugayo oo saliid ka go'an tahay oo waqtiga adag yahay yaani neefafkii lagu gaday waxa laga bilaabay kaash baa laga bilaabay waxa dhacday neefkoodii oo tagay wixii laga bixiyana goyn waayay oo loogu socday walaalay sidaas darteed baa waxaanu ilaa anagu kaash ma wadnay waxaanu wadnaa xoolaan wadanaa waxaanu isnir marka dhexda inta khalkhalku degayo dawladdu shaqaynayso wadanka la dejinayo waxaanu isnir yaan dadku idinka baqtiin baanu u niri
haddeeroo laga bilaabo waxaan rabnaa dawladdu inay noo shaqayso si sharaf leh si annagoo maasha allah soo dhowaynana dalka wax laga qabto sidii ganacsigu ahaan jiray oo lagu soo celiyo lacagtii inoo kala socoto shacabku inuu ku dhex noolaado baanu diyaaruna maxamed bidhaanshe bidhaan media garowe